بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. halkan waxaa ka hadlaya marcawal ibraahim afayeenka qurba-joogta beesha ciise. waxaan halkan salaan iyo hambalyo uga diraya beesha ciise meel kastay joogto iyo muslimiinta adduunkaba. waxaan yar wargelin ka siinaya qurba-joogta iyo dire-joogtaba. waxaan booqashadii aan ku tegay gobolka city ama fasaxaygii aan joogay samarkii waxa aan aaday magaalada dire-dawa. waxaanan muddo soo joogay intii rabadaankii ilaa 2 bilood fasax fiican aan kusoo qaadanay. ilaahayna nabad nagu soo celiyay Canada. waxaan qurba-joogta uga yar waramayaa booqashadii aan ku tegay gobolada maaragtay degmooyinka Hadhagala iyo Dambal iyo dhulka mida maaragtay ay shacab intaa oo dhulkaan maray. aan halkaa 9 qof oo qurba-joog aan ahayn. waxaan seexanay habeen samakaab magaalo leedaha dhuure. waxaan maray waan soo maray gabi oo beeraleyda ahayd. waan aragteen videoga dhulkaasoo dhan oo soo maray. aad buu u fiicnaa, roob baa da-ay, dhulku dhul iska abaari ku raagtay ahayd. dadkuna aad bay maaragtay u tabanayeen dhibaatooyinka ugu waaweyn ee fariinta aan ka siiday waxaa kamid a gabi magaalo la degay dhawaan. magaaladaasna waxaa aad loo dalbanayaa dadka khayrka jecel ee muslimiinta adduunka inay gargaaraan magaalada maskiidka iyo madrasad oo waxba ka jirin. maskiidka oo la wareejiyay dhagax ayay leeyihiin war wixii muslim ama ilaahay dar ilaahay ula baxayo na soo caawiya. qurba-joogta meel kasta ay joogto, carabta wadamada carabta, kuwa qurbaha kale ee Yurubta reer galbeedka iyo kuwa maarag Jabuuti iyo dire-dawa intaba deganba dadka ilaahay wax u dhiibay inaa gabi la caawiyo. siiba dadka ka ganacsada gabi ee beeraleyda oo rag maal qabeen oo badan oo Jabuuti degan ama dire-dawa degan ay ku jiraan. ayagana waxaa laga dalbanayaa inay maskiidka iyo madrasada ka caawiyaan. waxaa kale oo jirta samakaab magaalada aan tagnay 900 oo caruura oo madrasada ay habeenkii galabtii loo kala degdego oo loo laayay space ayaa iyadana naga soo dalbaday inaa laga caawiyo. waxaa kale oo jirtay high school magaalada waxay leedahay samakaab ka tobnaad 11 12 ayaa gargaar aad looga codsanaya. waxaa aweejaan anaku talaaban qaadnay muddo waxaan halkaa ku sugnayn saaca maalin iyo badh. marka waxaan la shirnay dad maalqabeena ah ama dad degaan ka soo jeeda oo samakaab inaa la gurmado oo iskuulka wax laga qabto. hawlihiina dad badan baa iminka magaaladii tegey. waxaa kaloo laga dalbaday inay dadka eriyada caruurtooda digtaan hadday samakaabta haday baadiye tahayba ay ka geystaan gacan iyakuna xoolo ay ku haysta iyo kuwa waxaysanba ay wixii ay ku darsan karaan ku darsadaan. waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa reer biyo baxay oo iyaku gacantooda ku dhistay. intii qurba-joogta berigii hore u dhistay ururka hurdoon ay 1 ilaa 6 ay 8 ku darsadeen, haddana 10 ku darsadeen, iminkana ay dhamaystirteen. ayaan aad iyo aad ugu farxay. waxaa kale oo jirta gobolka inta aan maray tacliintu berigii hore waxba kama dhisnayn, laakiin waxaa iminka loo baahan yahay inaan heerkii la rabay lasoo gaadhsiiyo. gabi oo kale grade 4, deegaraacawa grade 4, xorriya xaarey waxaweyaan waa ka 6, waaruf waa ka 4, birta dheer waa 6. waxa weeyaan iminka dhuuro oo kale waa 8, harawaata waa 8. yani dhul badan ayay u baahan tahay. marka dawladda degaan waxa way qabatay, laakiin halkii looga baahnaa ayaa weli ma gaadhsiisna. waxaan ka codsanaynaa dawladda degaanku inay aad u soo geliso xagga tacliinta, ay geliso maskaxda, ay wixii ay ku beerin karta degdeg u beeriso. dadka degaankuna waa inay iyakuna gacantooda wax ku qabsadaan. hadday aqalka dhistaan dawladdu waxa u keenaysaa maaragta macalimiintii iyo wixii kale loo baahnaa, qalabkii kuraasida. marka wax badan ayay xagga tacliinta xagga caafimaadka waan u fiirsaday. inta magaaleen maray
aqalkiibaa dhisan weli qalab ma jiro dawo ma jirto neersina ma jirto marka gurigii mar hadday dawladda dhisto ee iya keenaya dawadii waa inay dawladdii keento waa inay neersigina keento wax badan baa halkaana ka maqan marka programyadeeni imtixaanaha ee hadhagaala laga hadli jiray ayaan hadda bilaabi doonaa waxaan u sheegaynaa dhegaystayaasha ku soo dhawaada hadhagaala news 2 bilood iyo badhaan ka maqnaa hawada waa ka maqnay waxaan bilaabi doonaa problemadii ka jiray deegaankeena hadday Jabuuti tahay macaaridi maxaafid waxay is oran jireen iyo dhibta maanta halkaa ka jirta ilaahayna khayra ka dhigo gobolka city ama deegaanka Soomaalida ee Ethiopia way ka jirana waan ka warrami doonaa sidii caadada noo ahayd gobolka Salal ee Soomaaliland waan ka warrami doonaa waxa wixii kale ee waraysi inay baxshaan doonayaan ku soo dhawaada halka waxa ka leeyahay hadhagaala news dhagaystayaasha waxaan leenahay programyadii badbaadada beelweynta iyo badbaadada qaranka Jabuuti waan bilaabaynaa haddii ilaahay yiraahdo wixii danaynaya inay warbixinna siiyaan soo garaaca telefoonka Xaaji Cumar waanad garanaysiin ama emailka igu soo dira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hadhagaala news. السلام عليكم.